السلام عليكم. السلام عليكم وشكرا هذا علي مدح برنامج كهون كابيتال نتورك. اللهم صل على محمد. هذه أنه يرى الله فما قرفينه أنه أدرسنا اللهم صل على محمد نيوزيلاند سويس فرانك waxaad moodaa in ay fursadi ku jirto aynu ugu geli karno short waxa dailiga inoo muuqda price-ku markii uu halkaa dhaafi waayey halkaa markuu dhaafi waayey price-ku muddo markuu price-ku halkaa dhaafi waayey inuu hoos uga soo noqday deedna waxa suurtagal ah inuu meelaha direction-ku hoos u socdo tan iyo inta uu ina tusi doono astaan dambe oo muujinaysa in shortkaas uu dhammaad yahay direction-ku waa short ayuu dailigu inoo sheegayaa waxaanu u baahannahay inaynu sii xaqiijisano allahumma salli calaa maxamed 4 hour wuxuu inoo sheegayaa price-ku inuu xoogaa sameeyey bullback ah uu sameeyey dabeedna uu soo gaadhay zone critical ah zoonahaasi waa zone resistant noqon kara waa zone resistant noqon kara ay price-ka ku adkaan karto inuu jiiro marka waxaa suurtagal ah inuu price-ku xoogaa uu bartaa ka soo noqdo waxa weeyaan sonihii koowaad price-ku resistance ahaa wuu gaadhay uu dhaafay kii labaad buu joogaa marka waxaan u baahannahay waxaan filaynaa inuu price-ku zoonaha resistance-ka uu hoos uga soo noqdo allahumma salli calaa maxamed waxa weeyaan marka haddii even xitaa hadduu halkaa xiyaasi yara dhaafo anyway zoonahaasoo dhan waa resistance hadduu xitaa wax saa usii yara socdo inuu hoos soo noqdo doonayna ama bartiisaas oo hoos uga soo noqdo waayo zona resistance baa la joogaa waxa weeyaan New Zealand Swiss franc direction-ka inoo sheegaysaa waxa weeyaan waa short waa direction short ah waxa loo baahan yahay zoonaha marka ay istiraatiijiyadaadu ay ku siiso signal oranaya sell inaad sell u gasho waxa weeye misalan 1 hour ko kala daymaado price-ku xoogaa buu kor wali u sii socdaa waxaan doonaynaa inuu aakhirka uu hoos soo socdo waxa weeye New Zealand Swiss franc qorshaheednu waxa weeye caawa allahumma salli ala maxamed April 16 weeye April waa bisha April waa 16 maanta 16 baxay allahumma salli ala maxamed waxaan u baahannahay New Zealand Swiss franc inaynu isha ku hayno fursad oranaysa short fursad inoo sheegaysa short inaynu suuqa u gallo oo aynu dollarka New Zealand iska iibino waxa weeye ayaa loo baahan yahay inaynu isha ku hayno fursadda New Zealand Swiss franc ayna siinayso ee ah short marka qof waliba istiraatiijiyadu doonaha isticmaalo laakiin zoonahan aynu imika joogno waxaad ka eegtaa signal ku siinaya sell waa inay istiraatiijiyadaas ku siisaa signal oranaya sell signal kasta oo buy sheegaya waa inaad ignore garayso waayo waxa la joogaa zone resistance baa la joogaa allahumma salli ala maxamed dhalinyarada Soomaalida waxaan u sheegayaa avex waxa u baahan yahay barasho waxa u baahan yahay in aad garanayso reason-ka aad suuqa u galayso uma baahna inaad signal indhala'aan dhowr jeer hore baan u sheegay inaad signal indhala'aan ku daba gasho avex wuxuu kaaga baahan yahay inaad barato u samirto discipline yarato istiraatiijiyad raacdo uma baahna inaad signal indhala'aan ku raacdo inaad ku wareegto toolkeebaanto maalinba aad tool iibsato waa astaamaha barbaradka waa astaamo
forex waxaan ku jiray waxaan bilaabay adigu imika sanadkii 2011 almost waa 9 sano in ka badan marka waxa weeyaan astaan marxalado badan buu qofku markuu barbaradka yahay uu soo maraa marxalado badan ayuu soo maraa waxa weeyaan waxa kamid ah inuu hadba meel boodo hadba dhinac boodo oo hadba tool boodo isagoo doonaya faa'iido shortcut ah oo degdeg ku taajira iyo machine yar software oo dhag maalba lacag u sameeya ama qof aan garanayn oo u ballan qaada inuu daba galo oo aan doona signal aan garanayn oo iska daba galo cid daba gal laakiin cidda daba galaysid waa inaad reason-ka suuqa ku gashay garanaysaa maalinta ka dambaysa marketkana waa market nool waa market waa habdhaqankii aadamaha ay wax ku kala iibsanayeen weeye sawirkan aad aragtaa ee chartka marka bini aadamkii dhaqankiisuna way adag tahay sida loo saadaaliyaa waxa weeyaan maalinba wax cusub buu la soo baxaya marka waxaa loo baahan yahay in aad waxa weeyaan aanad iska gelin suuqa ee aad garanayso analysiska approachka lagu saleeyay marka signalka aad qaadanayso marka hada jeer eego meelaha dhalinyarada Soomaalida ee suuqa dhawaan ka war heshay ay ku wada hadlayaan waxaad moodaa inay signal bilaash iska raadinayaan signal ay iska daba galaan oo aanay garanaynin iyo qodob kale oo isaguna aan arkay brokerska fadlan wax weyn ma qofku markuu professional trader yahay spread kan yar ee brokerku waxba ka qaadi maayo marka professional trader tahay spread ka yar iyo brokerkan waa market maker waxba aanay been ku sheegin brokerada badankoodu waa market makers waxa weeyaan waxa aan kula tan lahaa brokerska base code yahay Mareykan inaad kuwa aad iska dayso laakiin brokerska kale waa okay haddii ay yihiin مثلا Seychelles oo kale iyo wixii la mid ah is okay brokerkaasi waxa weeyaan regulated maaha waxba ha dhageysan waxa weeyaan haddii kuwa regulated ka wax kale maaha waxa kuwa kale adiga waxa dani kugu jirtaa account-kaaga yar waxa adiga waxa dani ay kugu jirtaa waxa weeyaan marka dani ay kugu jirtaa waxa weeyaan inaad lacagtaadii heli karto oo marka doonto broker kala soo bixi karto lacagtaada account-kaaga yar waxba brokerka agtiisa kama aha marka kuwan brokerka metelaya ee leh brokerkana waa regulated na waxay kula tahay inay $500 ama $1,000 ku soo dhicinayaan adiga waxa maaha waxa haddaad si kale xitaa u shaqaysan tahay marka soo profit samayso xoogaa gaadhaba la soo bax lacagtaada waana $100,000 waxba aanay account-ka kuba gaari anyway adigu taa waxaan hadalkaaga keenay dhalinyaro badan oo brokerska ka sheekeynaya waan arkay oo brokerska kana wanaagsan kana sidana brokerku Soomaali ma tahay document-kaaga ma aqbalaya is okay lacagtaada ma ka helaysaa okay wey restriction kale ataan lahayn waa caadi qaabka lacagta u dirtayna waa iska hubsaa haddaad wire transfer ku dirtay iyo haddii aad ku dirtay si kale electronic ah way brokerada policy-gooda waxa kamid ah nidaamka lacagta ugu dirto nidaam la mid ah oo in lacagta ka gasho qodobkan isla maskaxda ku haynaysa anyway dan soo koobo caawa New Zealand Swiss franc baan soo gelinayaa oo inoo sheegaysa oo zone fiican joogta oo resistant ah oo inoo sheegaysa in short u galo marka standby ahaada strategy-diina qof walba strategy-da isticmaalayso short u gala maaldhow waxaan sameynayaa platform gaar ah oo qolyaha memberska kaliya aan u gelin signalada ay ka heli karayaan signal ma hayn dhalaan waa analysis live ah ay ka heli karayaan iyo gacan qabasho badan iyo services fara badan intaas aan kusoo koobi lahaa oo Shamarka Maxamed Cali oo Burcad ka soo salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh